waxa arintaas ayada ee ah shahaado wax loo bartay ka halis badan arin runtii bulshadeena aad ugu faaftay taasoo ah in la yiraahdo cilmiga maadiga ah iyo cilmiga diiniga waa iska hor imaanayaan. Waxaan dhihi karaa halkan haddii culimada Soomaaliyeed ee kitaabada laqbeeyo ay hadalkan u sheegi lahaayeen dhalinyarada diinta baranayso, hadalkan Imaam Shaafici laga soo warinayo, runtii ummadeena maanta meesha ay joogto maysan joogteene meel ka sarreyso ayay joogi lahayd. Bismillah, assalaamu calaykum. Markii ay muslimiinta furteen dhulkan la yiraahdo Shaam oo ah wadamada Suuriya, Lubnaan, Urdun, Filistiin iyo qaybo Ciraaq ka mid ah, waxa dhacday in amiirkii wadamadaas ayaga ah ama dhulkaas Shaam la yiraahdo oo warqad u soo qoray amiirkii muuminiinta ee xilligaas khulafadii muslimiinta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu una ku leeyahay reer Shaam waa bateen, magaalooyinkiina waa buux dhaafiyeen, waxa ayna u baahdeen dad quraanka baro, igu kaalmee rag waxbaro. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxa uu kulmiyay marka Ilaahay ka raali noqdee asxaabtii muslimiinta kuwoodii quraanka jamciyay sida fiicanna u yaqaanay rasuulka markuu dhintay kadib sallallahu alayhi wasallam. Waxa uuna ku yiri walaalihiin waxa ay iga codsadeen cid quraanka barto diintana fahansiiso, sidaa daraadeed igu kaalmeeya saddex idin ka mid ah oo quraanka barto, Ilaahay ha idin naxariistee. Waxa soo baxay marka Mucaad, Abu Darda iyo Ubaada oo ka mid ah saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwoodii quraanka aadka u yaqaanay isla markaana diinta aadka u fahansanaa. Saddexdaas ayaa Shaam loo diray. Waxaan dhihi karnaa saddexdaas saxaabi waxa ay ka dhignaayeen jaamacada gurguuro ama waxa ay ka dhignaayeen waxa maanta loo yaqaano visiting professor oo ah macallin jaamacadeed bara sare oo inta ka soo tagay wadankii wax ka dhigay wadan kala tago si uu jaamacad muddo kooban wax ooga dhigo. Sidoo kale waxaan dhihi karnaa waxa ay la mid yihiin jaamacadaha ku caanbaxay cilmi baarista iyo aqoonta iyo cilmiga ee wadamada kale ee adduunka furuucda looga furo ama branchiyada looga furo ee loo yeerto qarashkan ay bixiyaan dadka wadankaasi tarab in farac laga furo leh. Saxaabada iyaga marka waxa ay buddhig u noqdeen xadaaradii islaamka ee dhulka asaga ka hana qaaday ee culimo aad u tiro badan iyo qorayaal aad u tiro badan oo muslimiin ah oo dhinacyada kala duwan oo dhan oo cilmiga ah ee dhulkaas ka soo baxay ayay saldhig u noqdeen. Muddo yar oo ku siman qarni gudihiis 100 sano waxa dhacday in dhulka asaga uu noqday dhul loogu taga cilmiga aqoonta diiniga ah iyo tan maadiga ah labadaba. Meeshan marka waxa inooga soo baxaya ummadii doonayso inay horumar samayso, ummadii doonaysa inay dunida hor u kacdo, waxa laga maarmaan ah in ay cilmiga iyo aqoonta si dhab ah u qaadato, jiilka soo korayana ku barbaariso, ayna qiimo siiso aqoonta ama diini ha ahaato ama maadi ha ahaatee. qof kaste waa in laga dhiso aqoonta iyo cilmiga laguna ababiyo, sababtoo ah qofka waa meesha ugu hooseyso ee laga soo bilaabo dhismaha. Qoysas ay ummadda ka kooban tahay, qoysaskaasna waxa ay ka kooban yihiin afraad amaba qof. Dadka iyaga ah marka qofkaas haddii loo dhiso, qoyskii baa dhismayo, qoyskii hadduu dhismo bulshadii baa dhismaysa, bulshadii hadday dhisantana ummadii ayaa dhismaysa oo noqonaysa ummad oo wacyigeeda, aqoonteeda iyo garaadkeeda intaba iyo fahankeeda nolosha uu sareeyo. Goobaha waxbarashada waxaa la sheegaa in ay yihiin goobaha laga qiyaaso awoodda iyo waxtarka ummad ay leedahay. Horumar ma samayn karto, awoodna ma yeelan karto ummadii aanan waxbarashada iyo aqoonta qiimeynin, waxa ay mudan tahayna aanan siinin. Waa waxa kaliya ee ummad lagu horumarin karo waxbarashada iyo aqoonta. Qof waa laga yaabaa in asagoona waxbaranin intuu ganacsi iyo waxgalo u dhaqaale sameeyo oo nolosha horumar badan uu ka sameeyo, laakiin ka ummad ahaan marnaba ma dhici karto aqoon la'aan iyo waxbarasho la'aan inay horumar badan samayso. Haddii aan isweydiino marka yaa ka mas'uul ah aqoonta iyo faafinteeda iyo tarbiyada iyo waxbarashada, waxa weeyaan sida caanka ah ama la yaqaano waa macalinka. Macalinka marka haddii uu fahansan yahay arrinta ayada ee ah in aysan horumar ummad samayn karin ilaa aqoonta iyo waxbarashada laga hormariyo mooyaane, waxa dhacayso inuu macalinka xil isi saaro asaga oo uu si dhab ah u qaato hawshan ayada ah, sidaasna uu isku dayo inuu wax walba oo uu jiilka soo koray u samayn karo uu sameeyo si uu aqoonta u jeclaysiiyo, cilmiga u jeclaysiiyo, waxbarashadana uu u jeclaysiiyo. Waxa uu sameynayaa inuu tiknoolajiyadda uga faa'iideeyo waxbarashada oo uu ku daro wixii uu dadka barayay wax fududayn karo amaba jeclaysiin karo ardada uu hadba wax barayo waxa uu barayo markaas. Taasoo keenayso marka in ay soo baxaan jiil waxbarashada u hamoon qabo, ku dadaalo,
inta cumrigooda dhan ahna wax kororsado wixii ay kororsadeenna ayaga sii gudbiyo. Tiknoolajiyadda laga faa'iideysanayo iyo waxbarashada la casriyeynayo macnaheeda ma ahan in dadka diintooda iyo dhaqankooda laga tago, ee waa in loo ilaaliyo islaamnimadooda iyo dhaqankooda suuban ee Soomaaliyeed. Inta badan ummadaha horumarka adduunyada ka sameeyay amaba adduunyada horu kaco, haddii aad u fiirsato waxa ay ku dhagan yihiin wixii ay hore u haysteen. Tusaale waxaa noo noqon kara wadamo aad u tiro badan reer galbeedka oo kale, Yurub iyo Mareykanka iyo Canada iyo wadamadan la sheego. Dhinacan barigana waxaa la dhihi karaa Japan iyo Korea iyo China, intaba waxaa la dhihi karaa waa wathaniyiin, yani diin ma haystaan amaba diintooda waxay asnaam ay caabudaan, laakiin haddana sidaas oo ay tahay waa dad horumar fiican nolosha ka sameeyay, kana soo qaatay dadkii adduunka horumarka iyo tiknoolajiyadda kusoo kordhiyay, wax ka baranaya, wax ka faa'iideysanaya ayagoo tooda haysta. Marka anaga waxa aynu u baahannahay waa midaas ayada. Walaalayaal, waxbarashada kuma koobna in inta muddo kooban wax la barto, shahaado la soo qaato ama warqad, deetana shaqo lagu raadiyo. taa kaliya oo lama jeedno waxbarashada aynu ka hadlayno. Waxbarashada aynu ka hadlayno waxa weeyaan mid qofka aqoontiisa kor u qaadayso, garaadkiisa kor u qaadayso, wacyigiisa kor u qaadayso, isla markaana qofka dhisayso dhinac kasta. Dhibaatada mujtamacaadkeena ama bulshooyinkeena haysto, ama Soomaali ha ahaado ama kuwa muslimiinta ha haysto ha ahaadeen, waxa weeyaan in wax loo barto amaba loo baro xataa in dhaqaale laga sameeyo kaliya, ee aanan laga fikirin waxaan aan dadku bareen waxa ka soo baxaya maxay yihiin. Sidoo kalena ka wax baranaya uusan isweydiinayn war maxaad wax u baranaysaa amaba xagad u socotaa, maxaad rabtaa inaad si dhab ah u barato oo meel sare ka gaarto. Arrintan halisteeda waxa horey looga yiri cilmiga barkiis waxa uu ka daran yahay jahliga. Marka arrintan ayada aynu iska ilaalino oo markaynu wax baranayno aynu u barano si dhab ah, oo ah inaynu waxaan aynu baranayno aynu ummadeena iyo dadkeena iyo qof ahaanteena iyo qoysaskeena aynu uga faa'iideyno, aysan kaliya ku ekaanin wax iska baro shaqo ku hel ama wax baro asxaabtaada ayaa wax bartay. waxa arrintaas ayada ay shahaado wax loo bartay ka halis badan, arrin runtii bulshadeena aad ugu faaftay, taasoo ah in la yiraahdo cilmiga maadiga ah iyo cilmiga diiniga waa iska hor imaanayaan amaba la iska hor keeno. In dhalinyarada cilmiga diiniga baranayso looga digo inay cilmiga maadiga ah bartaan, iyadoo la leeyahay hal qof ma wada qaadi karo amaba ma waa iska hor imaanayaan oo qofka diinta bartay uma fiicno inuu culumta maadiga ah barto. Arrinkaas runtii waxaan dhihi karnaa waa arrin la iska dhaadhiciyay oo aanan xaqiiqo cilmi ah oo sugan aanan lahayn, xag diin iyo xag maadi labadaba. Waxaanan daliil u soo qaadan karnaa hadal laga soo wariyay Imaam Shaafici oo anaga Soomaali ahaan madhabkiisa fiqiga aan haysano. Imaam Shaafici waxa uu leeyahay hadal caan ah oo ah ma oga cilmi ka sharaf badan xalaal iyo xaraan kadib cilmiga caafimaadka, laakiin waxaa naga badiyay ahlu kitaabka oo ula jeeda Yahuud iyo Nasaaro. Yacni hadalkan Imaam Shaafici waxa uu u dhigan yahay xalaasha iyo xaraanta oo ah shareecada iyo diinta Islaamka, waxa in cilmigeeda la barto waxa ku xigo xagga sharafta iyo karaamada kan caafimaadka oo ah cilmi maadi ah oo aan laga maarmin. waxa uuna Imaam Shaafici Ilaahay ha u naxariistay uu leeyahay nasiib darro waxa naga badiyay oo nooga hormaray ahlu kitaabka oo ah Yahuud iyo Nasaaro. waxa uu ka shalaynaya amaba uu ka xun yahay in Yahuud iyo Nasaaro caafimaadka ay uga hormareen. maanta waxaan dhihi karnaa caafimaad kaliya ma ahane injineernimada, dhakhtarnimada iyo tiknoolajiyadda intaba dhinaca kasta oo culumta maadiga ah maanta ummadda muslimka ah waa looga horeeya, taabicayna u tahay ummadaha kale adduunka. waxaan dhihi karaa halkan haddii culimada Soomaaliyeed ee kitaabada laqbeeyo ay hadalkan u sheegi lahaayeen dhalinyarada diinta baranayso, hadalkan Imaam Shaafici laga soo warinayo, runtii ummadeena maanta meesha ay joogto maysan joogteene meel ka sarreyso ayay joogi lahayd. waxa ayna ahayn lahayd ummad ku guuleysatay adduun iyo aakhira labadaba. cilmigoodii diintana ilaashado, isla markaana wax ay noloshooda ku maareeyaan oo xirfado ah samaysto. walaalayaal, waa inaan ogaano shareecada Islaamka waxa ay kaamil ku noqotaa culumta kale ee maadiga ah waa ay dhamaystirayaan. ayadaa u sarreysa sax, ayadaa sharaf iyo cizo adduun iyo aakhiraba lagu helaa sax, laakiin haddana kama maaranto culumta ayada oo haddaad xanuunsato caafimaad baad u baahan tahay, haddii aad rabto in guri lagu dhiso cid ku dhisaad u baahan tahay, haddii aad doonayso in aad xiriir adduunka la samayso waxaad u baahan tahay tiknoolajiyadda casriga ah ee nolosha maanta fududeysa ee muuqaalkanba aad ka daawanaysaan. sababta aysan shareecada ooga maarmin culumtaas kale waxa weeyaan in ummadda muslimka ah ay ka madax bannaanaato ummadaha kale ee gaalada ah. maxaa maanta hoosgeeyay ummadda muslimka ah la dhihi karaa gaalada? wax kale maaha, waa aqoon darri. nin baa ku leh waxaan ku jihaadayaa AK-47
ama Kalashnikov kaasna ma samaysan karo oo nin gaal ah ayaa sameeyay. Hubka ka sii weyn waa sidoo kale dad muslimiin ah maanta wax isku dayaya jiro runtii oo arrintan fahmay dadkoodana ku dhiirigeliyay. hadafka inuu muuqaalkan laga leeyahay waa intaas. dadka ayaga amaan iyo bogaadin ay mudan yihiin annaguna inaynu ku dayano oo runta iyo dhabta aynu isu sheegno ayaynu u baahanahay. ugu dambeyntii walaalayaal waxaan dhahaynaa macalinka iyo ummadda wax kasta oo ay sameeyaan oo isku dayaan jiilka soo karayo laguma barbaarin karo cilmi iyo aqoon haddii qoyska uusan dowrkiisa qaadanin. qaybta uu ku leeyahay hawshan ayada hadduusan qaadanin. qoyska 3 waxyaalood ayaa looga baahan yahay. arrinta koowaad waxaa weeyaan in ubadka lagu beero jacaylka, waxbarashada, aqoonta iyo cilmiga. arrinta labaad ee qoyska looga baahan yahay waxaa weeyaan in waxbarashada yaraan ay carruurta ku bilaabaan. dugsiga iyo iskuulka labadaba in ay laba goobood oo fiican carruurta u dooraan, halkaasna uu canuga waxbarashadiisa ka doorto. yaanan carruurtana la dhihin dugsi kaliya lagu ekeenaya amaba iskuul kaliya lagu ekeenaya, labadaba aniga la isugu daro ayaan aaminsanahay. arrinta saddexaad ee waalidka laga rabo, gaar ahaan waalidka Soomaaliyeed, waxaa weeyaan in gabdhaha waxbarashadooda si gooni ah xoogga loo saaro. sababtu wax kale ma aha, hooyada siday dhallaankeeda caanaha u nuujiso ayay cilmigana u nuujin kartaa hadday cilmi leedahay. haddii aad adiga gabar wax barto, jiil wax bartay ayaad soo saaraysaa. sababtoo ah beritoole qofka waqtiga dhan la qaadanayo markay yar yihiin ee carruurta barbaarinayo waa hooyadii. hadday aqoon leedahay, jiilkeeda aqoon iyo waxbarasho ayay ooga sheekeynaysaa, kuna abaabinaysaa. sidoo kaleetana waalidka waa inuu fahansanaado sida carruurta dharkooda iyo cuntadooda ay ugu baahan yihiin oo xooggaan isaga saarno ayuu caqligana ugu baahan yahay waxbarasho. marka waxbarashada waa inaan la dhayalsanin ee xoogga la saaro, gabdhahana aan laga reebin oo aanan jikada lagu loobinin, ayagana waxbarashada lagu daro oo wax la baro. ilaahay waxaan ka baryayaa ugu dambeyntii in cid walba oo xarafna soo bartay, buugna soo akhrisay, amaba waxna bartay, inuu ilaahay u dambi dhaafo, adduun iyo aakharana meelsan geeyo, khaatimo wanaagsanna siiyo. aad baad u mahadsantihiin. salaamu calaykum.